وزاري هوري وزير كي هوري الدوانا اللي هوري بحر سبورتيغا صحافة وزير كوزارة دمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة هوري waxaan u tacsiinayaa anuu ku hadlayo magaca wasiirka wasaaradda iyo dhammaan wasaaradda qoyskii iyo eheladii ku geeriyooday wasaaradeennii hore gudoomiyaheenii gobolka xasan abshir faarax. ilaahay ha idinka sabab siiyo, isagana ahlu janna allah ka dhigo, khayr badan aan u rajaynaynaa. waxaan isleeyahay nin madax soo maray Soomaalida madax soo noqday oo ka nabad galay eedda shacabka dadka ugu horeeya ku jira weligii ma arkay ninkaas waa la sheegayo isagoo madax ahayn inta aan ku warqabo. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa guddigiisoo qabanqaabiyey tacsidaan. anagu waxaanu isnaa haddaa sportka tihiin kaalintuu ku lahaa gooni ula baxa oo maxay ahayd halkaas ka xusa. taasaa markaan keentay inaanu haddaan nahay sportskii aanu u samayno xus gaara oo nagu horkacayso wasiiradda sportsku. wasaad aragtaanba in iyadu ay ahayd inay maaragtay ay kow ka ahaato. marka xasan abshir waxa weeyaan waa tiirarka ayuu ahaa sportka Soomaaliyeed kow ka ahaa, sida uu sheegay professor ama Dr. Ali Cusmaan. naadigii Muqdisho la oranayay anigu jayaan waxaynu maanu jeclayn, laakiin saasay tahay haddana wixii taariikhda lama qarin karo. maalmahan oo kale maamay nooga faa'iidaystaan inaanu ammaano, inta badan ma ammaan magacyo kale ugu yaraa maalmaha kaleeto. marka waa dawladda hoose waa nin ku keenay macalinkoodii gaaneyska ahaa, waana kii bedelay qaabkii ciyaareedkii Soomaaliya markaas oo waliba dhalinyaro aada u fiican oo yaryaro markaa aan ahayn rag maaragtay muuqdaan ahayn, laakiin markii dambe oo farsamada la baray ay noqdeen kooxaha ugu fiican. tan kaleeto waxay ahayd dawlad hoose nin garan kara naadi u sameeyey, tan kaleeto u sameeyey qalabyo ugu qurux badan. marka laga tago kubadda cagta iyaga ugu qurux badnaa la oran karaa qalabkay qaataan oo fara badan. ka horna waxay ahaayeen daasba isu sheegay Cali Cusmaan iyo Sarxaan Dheere iyo Faarax Keen Allah naxariistay iyo Maringiyo. kubadda kale kooxdii ugu adkeedo markaa ugu fiicnayd. kooxda gabdhahana iyagaa iska lahaay kooxda ugu si walba ugu horeeya ayay ahaayeen xilliyadaas. marka naadiga Muqdisho ciyaaro badan oo lagu xusanayo wax ka mid ah waa ciyaarihii gobollada. ciyaaraha gobollada hal jeer waxay tartan culus bay ahayd. anagu haddaan ujeedan yahayn waxaa dhacday xilli Muqdisho ay naadiga maamulka gobolku oo intuu ka leexiyey oo yiri qoladii jayay bal sanadkan hala tijaabiyo. inta munishibi la dareemay inay dhowr jeer sanadihii gobolladii ciyaaraha mar boqol qaaday Hiiraan iyo qoleen kale ka qaadeen. markaasuu wuxuu gaaray go-aan inuu yidhaaho jayay guddigeeda sports ha maamuleen oo weliba anigu markaa gobolka Muqdisho gobolka Banaadir layga dhigay oo aan guddiga ka mid noqday oo lahaaba raggii markaa hawsha waday oo runtii ku guuleysanay. marka waa nin awoodi kara in naadi kale inuu yaro kale ii maamula. xoogaa taageerayaashu marka waa xanaaqeen, laakiin xanaaqooda waa wax markiiba soo gaabtay ilaa magaca koob haddii la keenay waa lagu ilaawaya. waxyaalaha yaab kale waxay ahayd nin aada maskax furan buu ahaa, reer beleda bulshi ah. marka ragga wasiirada qaarkood marka la yidhaaho waxaa la sameynayaa wax lagu badiyaa loo baahan yahay, nafaqo dheeraadaa jirtay sportsku la isticmaali jiray. marka waa kaftan bay iska ahayo dhaaw baa la oran jiray waxa la yidhaha. marka mas-uuliyiinta qaarkood may fahmi jirin, may aqoonin. marka isagoo kula kaftamay qaar kale warnaa ugama taqaanin miya. marka waxay ahayd nin ilaa ninka hoose ilaa ninka sare fahmaya. meesha basika laga raaci jiro tiyaatarka kasoo horjeeda habeenkii sportska oo dhan meeshu lagula caweyn jiray, meeshaan lagula kaftami jiray. marka waa qof wuxuu ahaa shaksiga aan oran karo sportska soo maray oo muxuu ahaa isagoo wasiir ka noqon intuu geliyay ay ka badnayd kuwii mas-uuliyadda markaa ka hayay meesha si walbaba. marka
waxaan ku daynayaa qeybaha kaleeto ra-iisul wasaare hore maxamed cabdi yuusuf. annagaan sawirka maanta naga siiyo isaga iyo intii lamid ah hadalkaba meesha yaallama jiro mataqaana shawaalii wuxuu dhihi lahaa aad baan marlabaad ugu mahadcelinayaa bahda isboortiga soo aroortay munaasabadan qiimaha leh oo magaranaysa lagu xusaayo ninka haliinka wadaniga ah oo dalkiisa u soo joogay aad baad mahadsantihiin.